الله الرحمن الرحيم. صاحبي البرنامج هو برنامج جديد كرجدا ومحرج صاحبيا هذا موجود هم بمدام يجين رجع كنول أما قفل أنه يكسن يمالي ونكسن وقت ونكسن إفسن يا آخر سن انتبه وحنا بدك مرتقدنا قفل قويهنا قفل عن دور بدنا إن أي رول مورال كديجن كرينا صاحبيا أما تاريخ كده جنت هاي تيدل كهاتو تيدل كهاتو أما شخصية ونكسن أول فهمتي سوق ده شمضن هدية هاي صاحبيا برنامجكم حمر تشرفنا وان مهد علينا استوديو كوبادنا نوصل بغدو وجمال أحمد جمالي وكم إذا قويان كسوماي لأنه قربها كراجي دلكيسو هو وقت آدو بدن كم مقنع رنهانتي أن راه نقصنا مرك كوباد دلكا هو يسودو جمال غاد ما حسنت ولا المونة runtii badi waxay moodaa Somalilanders kama Soomaaliland dalkii ka qaxeen waqtiyadii ayaad ka xaaladaha guud ahaan qaarkoodna ay siimaanada raaceen ay ka horreeyeen تعبرين waxay la soo guriyeen noqdeen way su'aasho qaar dad badan suud iyo tie la soo guriyeen noqdeen qaar aqoon iyo waayaragnimo la soo guriyeen noqdeen hadda adiga la fahanto dadkan iska badan waay horta wala muha aad baad u mahadsantahay inaad ku soo casubtid ina suurta gelisid inaan gaaro ama la hadlo daawadayaashiina badan ee meel kasta jooga Soomaaliland marka su'aashaada dhowrka geesla hadaan ka jawaabo marka ugu horeysa wadanka runtii anigu markii ka tagay waan yaraa kamaan tacabirin kamaan tagin laakiin actually waan ka qaxnay qaxitaanku anigu ugu horeeyay 1977 sababta keentana waxay aabahay ilaahu naxariistay Axmed Jimcaale oo gudoomiyaha sanadka ugu horeeyay ahaa oo ka soo horjeeday nidaamka 75 buu jeelka ka soo baxay markuu ka soo baxay uu baxsaday Djibouti maray Sacuudi ku dambeeyay sanad kadib anagana sidii lagu wadadii baan marnay marka tan wadanka kaga digsaas ahay waligeena waxaan ku riyoonay maalinta aan ku soo noqon doono Hargeysa waanu Hargeysa ku dhashay ilaa waqtigan ka dhoofiyana sanad xamar joognay mooyaane meel kale kamaan tagin marka horta aad baan ilaahay ugu mahadnaqa inaan ku soo noqday maanta talabaad waxa weeyaan suudkan yaanu ku dagin wahay wax kasta waan ka soo shaqeynay washmaani baan ka soo shaqeynay factory baan ka soo shaqeynay restaurant baan ka soo shaqeynay weel la mayrayo marka suudku waa taa meesha waa inuu appearance weeyaan laakiin dadku marxalado kala duwan waa marxalado waana wax daruuri ah shaqaduna ceeb maaha waa la sanada dibadda laga soo bartay alxamdulillah maanta wadankii aqoon iyo waaya aragnimo ayaan anigu ku soo kordhinay insha Allah waxaan ogaaday aan waxaan soo bartay oo looga qayb aad loogu baahan yahay wadanka sharciga oo markii hore runtii ka warhaynay وحاجة كنتي ما حسنا جنعي بروفيشن كانت كل شغلة تقدر الله يربط نقطة سوماليلاند يو حال هي حقوق دوضة هذا قد يد سوماليلاند دوضة يو كينيا ما أفريكان دبلوماسي لحظة لينا ونركي تخصص كاجي هذا كل حسابته من ذلك الله يربوبه هي عالمية وليبا جنعات سوماليلاند كعالم كرتا والله سيشكتورت إمك مرحلة دنا نقول شراء دنا نقول شيء واحد سنقول شيء إمك أيام فهمت بهذا الوطن قوية قيبتك كجلي كرو marka horta wali indhayn baan ku jira laakiin sidan u badanahay waxa weeyaan waxyaalaan ku takhasusay markaan ku jiray iskuulka sharciga ama law iskuulka waxa kamid ah international law afaf kala jaadana waan ku hadlaa Carabiga Ingiriisi kamid yihiin asxaab badanna waan ku leeyahay regionkan marka I think qaybtan aad wax uga kordhin kara ama contribution ka keeni kara imika waxa la tahay qaybta kala xataa hadday noqoto NGO inaan uga doono lacag oo si loo sameeyo dib u habeyn legal reform wax la yiraahdo oo aad ugu baahan wadanku taasana inay hadda ku jiraan وهاجي كنا هنتي حجرتها جامعة هرقيس الله ولا بدي فقط فلو يقلفت المنبوق قطعي دلائل مسكوتة بالبلاد أديس حشيتي ليش يرجعيز الخبرة دولة واحد عداك ليش كفري ونمك وقش كيري إنك كمرة دينو قاضي محمد عيسى محمد عيسى سنواني الله يروي يعني ندل يراو عمش سويان وحنو رشين يعني كارو جول سبيسود إن شاء الله بإذن الله الكريم مركا وحلا الله الدكتور حسين بلحن ونمرين كيسكون قاني سيانو السلامة marka laba week baan magaalada joogaa marka Dr. Xuseen wuxuu dhigay faculty looga ma wax ma ka dhigaysa laga baahan yahay marka waxaan ku yiri waxaan markii hore arrin family oo gaara oo khusaysa dhul laga dhacay inuu waqtigiisa naga qaaday markii dambana shinnidiisa aad ka tagay ay naga dhacday daraadeed baan u imid marka laba bilood kaliya ayaan isku wadaa marka waxa dhul baad u timiso ma haabaan ugu qoslay wuxuu 6 bilood kadib la soo hada واحد كوميت ما صبين كرا لما بلو أرتدي تروح بلعبه. كوميتي. يا سيدي بعد عدي لح بلوت كدي باوعي. أرنتي وأد بنوجا قصة الموت سيدو ودي. مركا جامعة دوان تجي إنك الدين كأول سنقانا مركا إنك واحد ربعون سيدو جوا ناكسن. هذا واحد كلنا نكوش يجين واحد سنة أنت هالك تشوفي أوكسفام. أيان كونسلتنت ونقضي. لما بلوت مركا واحد نص مني إن تبوا هبين الشروع دودا.
laba wasaaradood wasaaradda beeraha iyo wasaaradda horumarinta miyiga iyo deegaanka oo waxaa jirtay iyagoo labada wasaaradoodba la dhiilgaraynayaan dhul ayaana haddana markay sameynay shuruucdooda aan is ogeyn marka conflict badan baa taa ka yimid iyo iska hor imaansho marka waxaan sameeyey labadii sharciba waan isu eegay waxa markii hore qeexay waxa ka maqan sharci ahaan ta beeraha gebigoodaba waxay ahayd sharciga ku dhaqmaan 5 beejo Soomaali ku qoran oo taagritana waqtigiisa yaad ka hadhay marka waxa u baahan tahay taasi update iyada lafteedu taa waxyaalo u baahneed waan sheegay waxaan ku dari karayna waan ku daray including regulations ka hoose shuruucda kaliya maaha sidaas leegtii deegaankana sida marka labadiina waan isu geeyay si qofkii markii doonaya inuu la dhil karayo arrimaha dhulka khuseeya oo dhan dhulka basically miyiga iyo beeraha uu meel uga wada helo shuruucdoodii oo la isku horeyno wixii noo cadaado marka taa runtii aad baan u xuseeyay waa markii ugu horeysay in enjoy gareeyo joogitaankayga wadanka waxaan arkay yani waxaan soo bartay wuxuu qaban karo waayo marka dibadda jooga ama qurbaha Mareykanka joogo New York City oo kale markaan joogo kumanaan kun oo lawyer ma kamid ah waa another lawyer lawyer kale bana ya soo wadaray oo de shaqaysan iyo xoogsan iyo dantiisu laakiin halkan waxaan arkay waxa sameyn karo inuu noqon karo wax ummad dib loo dhisayo qayb ka qaadan kara وارن مهم ويصحيبي أنا قدر نسشق وده قدرنا برنامج كتير كرتشدا محد تقول لي عاو هذا وضع من النسشة ما حاجة فنكا ما أيرن والله فنكا يلا بعرف موضة فنكا هاي نوضة بيقول لك هذا واحد شغالي ما دام إنه كهر لينو التاريخ وهرنا عرب كله في إن أحمد شمعالي داي الله يرحمه وحن يدين سوق هذا أما استوديو هذه نويا لا خطبة دردارنا وجود ما يصير ولا شيء سودت كي سوا خيو كون سجال بقولي سجاشن كي بليكو بدله marka ilaa 7 minute weeyaan marka daawadayaal ila daawada oo xasuusta waa 1970 1990 yabali gubadle mujaahidiintii baa marka madashay mujaahidiin badan waxaaba jooga waxa shirka kaliya isugu yimaadeen gudoomiyaashii sanamtoo dhan up to that point ilaa waqtiga oo isagu ugu horeeyay iyo kuwii ka dambeeyay inuu dhigna saaxiibayaal xisashana ka waraabiyo mujaahid أحمد شلاني إنه قدر وده لأنه مناسبة سي تاريخ هيدا وشيء جمال يرى. وكوي شرعية ده وسمينا يي جدًا. الجوي كشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بعد ومناسبة وناكسن مالتا شرفنا وإيتهي شرقدون كنوان ومهدنا غيا إلهي نوان ومهدنا غيا هدوينتا إنو ليسيي إنا نقول شوك هذا ومالتا عندك كيجي مناسبة بني أنكلا قيب غيو وليبا رد إرقوينا وكوي شرعية دو سمينا يي قدقا وشرف وين إلهي نوغو مهدنا قول انتا وحير عولا ليا هو لو أينو أرقنو ما أنت أو ينطابا كرو هي كهو رئيسي gudaha waa laga warqabaayo dulmiga oo dhibay waa wax jira laakiin dhibta araggeeda waa lagu kala horreeyey anuu 3 sannadood iyo badh xabsiga markaa ka soo baxayn hargeysa yimid bila rafle farsanadoodu dhow inaan la noolaado ama bukaana kala soo baxay xabsiga aan iskaga daweeyay hargeysa ka noqoday yidhaahdeen xamar waa inaad ku noqotaa odaygii baa ku doonaya iyaga dee oday buu ahaa inaga jawaynoo afweyne shaquu ku siinayaa kanuu ku siinayaa waxaa ii muuqatay in xabsi dambe laygu celinayo waxaan doonay ilaa bisha March inaan dalka joogo waxaan soo galay oo xamar ka soo galay oo xabsiga ka soo baxay 24 bishii November 24
waxaa dhacday 23 bishii January 75 in culimadii diinta ee wanaagsanaa ee dar Ilaahay u hadlayay ee daacadda ahaa inuu qoorta soo qabqabto uu gowraco waa kii waddanku hirig noqday haddana waa laygu soo rogaal celiyo waxaa la yidhi waa inaad ka socotaa Hargeysa meeyar baad ka ahaan jirtay ma doonayno inaan isqabqabsanno ama jiidjiidno waxaan ku yidhi war Hargeysaba xabsiyadu waa ka buuxaan iyo gobollada waqooyiga haddaa wax igu aragtaan laakiin dadkaygii oo intaasi ka maqnaa alla nagaadii idaaya waa soo dhammaystay xabsigaygii waxaa la isiiyey ilaa 15 ama 18 bishii February 75 waxay igu kaliftay ninka la yidhaa Cali Caarif oo 18 maris aragnay Prime Ministerna ka Jabuuti inaan waraaq u qorto 6 sawir oo kuwa baasboortada aan u diro oo nidhaahdo labada xadka Soomaalida la leedihiin ee Lowyacado iyo xadka Ethiopia la leedihiin qaarba meel dhinaca ka soo geli doono warkaba qabee Ethiopiana markaasi waa markii taajkii boqortooyada la gambiyey oo waxay ku jirtaa iyada qudaydu tawrad bay ku jirtaa marka si wanaagsan buu ii galay si wanaagsan buu iigu soo jawaabay sawiradii wuxuu dhigay Lowyacado iyo dhinaca kale Ethiopia hadka ay leeyihiin immigrationka dadna xaggan Lowyacadaan ka galay si wanaagsan baa Jabuuti dawladdii hoose iyo tii Faransiiska saraba iigu soo dhaweeyeen wax badan oo dalka haysta ama wax badan oo waqtiyada qaarkood aynu rumaysnay laakiin aynu ka noqonnay waan dhacsiiyey tallaabooyinka meeshaasi aan ka qaaday waxaa ka mid ah taliskii markaa Ethiopia u talinayay wuxuu ahaa taliskii Tafarrabanti ee militariga intaan la dilin waraaq baan bishii March 75 anu qoray waraaqda wax kale ugamaan jeedin rikoorka waxay idiin sii galeen waa ismudantihiin waa isurantihiin Ethiopia waxaan ugu qoray waxaa ka mid ahaa dadka reer waqooyiga ah sidaa uga warqabtaan dowladnimadoodii 60kii bay dhiibeen asbaabtay ku dhiibeenna Ethiopia gacan bay ku lahayd ilaa waqtigaasi ilaa maanta xaaba idinka laydinku gubo haddaa Ethiopia tihiin ayay ahaayeen ahaana doonaan ilaa sanadka 80 sanadka 80 ka hor lagama filayo waqooyi ama beesha isaaq la yidhaa inay ama diirto ama ay karto lagama filayo sababta Ethiopia ku lahayd isdhiibka waqooyi isu dhiibay koonfur shuruud la-aan waxaa keentay markii ninkii la odhan jiray Sir Lennox Boyd ee wasiirka mustacmaraadka ahaa uu ku dhawaaqay 59 aakhirkiisii in waqooyigu dowladnimadiisa qaadanayo oo Ingiriiska uu ka madax bannaanaanayo 26 Juun waxaa dhacday boqor Hayle Salaase inuu tasriix siiyey jaraa'idka adduunyada inuu yidhi waqooyigii Soomaaliya 26 ayaa isticmaalkii cadda ka dhammaanaya koonfurna wuxuu ka dhammaanayaa 1 Juulaay 60 markaasi oo hagaag saaxiibayaal taariikhdu iyada ay qortay Ingiriisku yiraahdaan laakiin iyada ay soo celisay sidoo kale ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo guud ahaan intiisna ku shahiiday naftii hurayaashii dalku lahaa ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo inta nool ilaahay nolol wanaagsan oo qiimeeyo qaayb badan ilaahay bidnillaahi kariim hasiyo oo iyo awlaadii ay dhaleen saaxiibayaal bidnillaahi kariim mujaahidiinta islam intuba Jamaal gudoomiye ugu horeeyay isna ma yeedhalay isaga la fahantiisu taariikhdii burbiyay oo qayb xal ka qaatay halkee bay iska shabahaan mujaahidkii weynaa caanka ahaa ee gudoomiye ugu horeeyay noqday isna mujaahid Axmed Jamaale
halkeed adigto markaad qiimaysid والله horta waxa jirta moohay midna waa dadku ku qiimeeyay dibadda kaarkaana ku sheegaan midna waa ta adigu waad isqiimaysid u aragtid marka kol labadu way isu yimaadaan kol way kala duwan yihiin marka ta ugu horeysa aniguna la waafaqsanay dadka waxa weeyaan horta aragii waan ka raacay oo anigoo shaaric maraya awlo dadka waaweyn ilaada walaal Axmed Jimcaalaad la waafaqsanay dadka waxa weeyaan horta aragii waan ka raacay oo anigoo shaaric maraya awlo dadka waaweyn ilaada walaal Axmed Jimcaalaad hargeysa nimid taasi waa koow waxa kale oo maleynaya inaan ka raacay hanweynida ama ambitionka inaad wax yar ku qancin inta ugu sareysa hadda doonaysid inaad gaadhid dayaxa aad cadceeda tiigsatid taana waan ka raacay san arko dadku leeyahay yiraahdeen iyo work ethic ama hawlkarnimo kol hadaad wixii goosatay inaad samaysid inaad 100% aad siisid iyo sidoo kale naxariis dadka jilicsan aad naxariisatid sifooyinkaasi ayaan aniguna waa ka dadkuna igu yiraahdaan waad ka shabahdaa ama waad ka raacday aabaha kulma ku dambeysay adiga aabood dhigaysatay la sheekaysatay ilaa xirsijanaa ka waraabiyo aad ma ugu xidhneed walaal aad baan isku dhawaan waxaan gacantiisa midig ilaa yaraantii waayo waxa weyn aniga idan baa iga weyn ana ku xiga iyo walaalkayga iga yar marka anigu always waxaan jeclaa qoritaanka wax akhriska siyaasadda taariikhda musiga marka waxyaalaha soo dhan isna uu ku wanaagsanaa marka aniga wuu arki jiray iskuulka aad baan ugu wanaagsanaa marka actually wuu igu confidence buu igu qabay waxyaalo badan buu sheegi jiray oo hatta marka guriga jidda lagu qayirayo shirarka shaaha marka uu keeno inta ka tago kubadda maan soo ciyaari jiray waan ag fadhiisan jiray TV-gana gacmaha ka daawan jiray dhinacna sheekadoodan ka dhageysan jiray hatta heer waxa jirtay Allah yarxamo wuxuu ahaa aad u wanaagsan oo caruurtiisa mid kasta dabeecadiisa fahamsan marka wuxuu sameyn jiray for example wuxuu ogaa in music aad u jeclaa marka kolba waxaan ka heli jiray nooc disco la yiraahdo kol R&B kol rock and roll marka intuu asxaabteeda ilmaadada jidda weydiiyo birthday-ga maalintii dhalashadayda ayuu tacajirada ii soo iibiyo ayuu kaarna ii soo raaciyaa gabay paid gabayana carabiyan xagga dambe kaga soo qoraa marka waxyaalaan wadaag jirnay waxa kamid ah in la yiraahdo Mustafa Maxamuud oo Masri qoraaya labadeedaba jeclay marka ana markii birthday-giisa tahay bisha June 16keeda ayaan inta laba koobi buug ugu dambeeyay Qaahiraan joogay inta soo iibiyo midna anigu haystaa midna isaga u tiraa markii ugu dambeysay wada hadallo waxa ay wuxuu joogay Suuriya intaan Qaahiro ku noqon marka wuxuu sameeyay xamla diblomaasiya ama olole diblomaasiya Soomaaliland Carabtu ina at least hadaan ixtiraafin ay siiso musaacada insaaniya marka isagoo saxadiisu iska daciifayd haddana inta dee uu cararay oo garif lahaa marka Syrian ka wada hadalay wuxuu iskuulka ku maraya iska waran walaashay marka iyaduna oo lahayd sidee tahay adigu waan iswareysanay marka wuxuu insha Allah markii iskuulka dhameysay ku soo anigu xoogay in North America jecelahay xagan ku soo noqon ana halkan wax kaaga helaya shaqo marka waana soo socdaa waxaan rabaa in joogo ina kan awoogo waxa ugu horeeya ilmaha ugu horeeya awoogo ah inaan arko hadalkaas uu ka dambeeyay kii ku xigay waxa telefoon loo soo diray aabo Qaahiro ku keenay assalaamu alaykum qadaraynu wada qadana saaxiibayna shaamil laba على
وهاك صاحبي فيلم محمد عيسى من كوقنعي جود هم بقدر كاسون أكسن النشرين كودنا صنعين برنامج كحنا نقول حجي كريسان هوب SLNTV@yahoo.com وأنا ديار برنامج صاحبي يلا نقاض نوع عذر ذا يو تلين كي تصالح هذون صدريسا جود هم أنا قاعد كم هاد علينا مرة بعد إن الوقت ينو تان برنامج كده وتان نصحنا ولي بخالدات كان قلينا صاحبي يعني بندك ما هاد علينا مرة بعد وهاجاك جمال أحمد جمال ما عندك هوايات كسوقرية نقطي تاريخ بدن بعد كده فهمت هذا كله دوجن دل كيدلك حسام مريم بدأت وحقال تحي أدلك حساب تامية تشوي جود دلك ما تمري هيك سياق محيي هاي والله هيك سياق حق التاريخ هانيد أنا وحنا دتك آد ورميسن ومدو تاريخ تيد هدانا إلهالين وأنا لسن كبرن لسن كخلادات كسبين وكبلينيا تاسي وحنا كارجني تاريخ الصومالي لان استعمار كمركن كوكا نجد تجي 1960 خلد كانوا سميناه إنه كوفرت كبيرناي وكي دبعت هذا إلا ما أنت نهاية ستا أكيد عادي مركا تاريخ دي دولة دي إن كوفرت اللي كبيرة وإن حسوستا لفهمها لفها لقى كرا خلادات كده على لقى فهمها تي وقتي سياسة سلك أنت إنه لصور نقرناي إمك إن حرني بديني وأنا قلت لكم هذا شيء واحد إن recognition بالدنيا لكن واحد إذا أنا recognition وهي recognized بينه هاي دولة جتنا هاي for 5 days سديد يصدم ودم بين اعترافي مركا وحويا اعتراف كان ما هم مركي جهريسي واعتراف إنه لا صون قانونه سو ما ذلك مركا تاريخ صور دون التحن إن لا حسوسنا هذا مركا أنا واحد كبل أبي ما دام إن أبهايها إن قدومي هوري السنمتا مير كي قدم بيجي نن هالجن كقريب قلي سومالي لان إلا وقت جي استعمارك إن التاريخ دي سأنو أنت أوجهي إن كاري كرو صوب بندقو تاسينا تصالح ونقطة تذكر كلام أما مشاهدين أما تاريخ دي هربا ويرنتي واحد وده حاجة تاريخ دي يحسك تذكر حين وقفتي إن الآد قال لي دينه تاسينا واحد وين هدان للسماين دباتي كينسا تشيل كحسوب السوق كوريا وطن اللي مدوده وواحد وين هدانو أرك تذكر وحقتي اللي دبدو تاجي واحد هرسنا يمانتا ما قيمينه تسوى كو طلبات كومدي رنيو markuu arko dadkii kale oo la xasuusanay inuu sacrifice u sameeyo tadxiir waddankiisa u sameeyo marka labada dhibaato way leedahay inuu ka fikirayna jiilka cusub aniga foxkayga hadda jeer waxa weeyaan mustaqbalka dhalinyarada way waxa u badanahay dhalinyaro maanta subaxdii markay soo baxdid aad baan u mabsuudaa dhalinyarada wada xidhan uniform wiilal iyo gabdho iskuul tagaya oo tiro badan ma fahantaa maxaa loo hayaa maxay doonayaan maxay koogin taariikhda waddanka iyo noloshana ku noolyihiin dhalinyaro waxa la kulmay aan xataa siyaad bari xasuusnay 1991 noloshooda ka bilaabantay ma fahantii marka kuwa taariikhda actually loo sameeyay waa kuwa marka ololaha waxaan ka bilaabay inaan ku fidiyo taariikh nololeed horta anigu intaan ururiyo dadka wareysto aan qoro ingiriis ku qoro marka Soomaali lagu tarjumo oo jamhuuriyad lagu fidiyo si taxana ta ingiriisigana lagu fidiyo Somaliland Times waxaan isku dayay xus inaan u sameeyo aabo dadku dhan ku soo casumay laakiin xuskaasi nawood cisoobay laakiin insha Allah markaan aan sameyn doona marka waxaan kaloo ku tala jiraa imika si aan xasuusi u soo celiyo iyadoo aan u sameeyeen because waa abahay but also waxa weeyaan waa national figure weeyaan waxa weeyaan ummadan baa iska leh Axmed Jimcaale iyo taariikhdiisa marka anigu taas uma ka caawinaya inta kalena insha Allah dad qiimeynaya Axmed Jimcaale iyo taariikhdiisa iyo taariikhda Somaliland waa taariikhda Axmed Jimcaale waa taariikhda Somaliland kuwaas dhameyn doona marka shayga afraad ololaha kamid waxa weeyaan ka taago board meesha ka taagay khayriida agteeda xaaji maxamed xaaji ibrahim cigaal
عبد الرحمن تور and so on inta halka ka tago eventually hadafkayga ugu dambeeyo waxa weeyaan in xaafad ama wado weyn oo magaaladii uu siiyay noloshiisa isagoo cadan ku dhasho Hargeysa ku dhalan wuxuu doortay noloshiisa inuu Hargeysa siiyo muhay marka inuu at least ka muuqdo waa waajib weeyaan marka anigu intii inanimo ayaan qabanaya inta kalena qaranka u taala إلهي كون قرب قلب بدنا الكريم إلهي كون قرب قلب جمعنا رنتي آدي بنكم هالإلنية إلهي نكون قرب قلب بدنا الكريم وتاريخ ويقرن كل هوسات شكلي صحيح البرنامج تذكر كذا غيبتني أنت سين تقول فينا محمد عيسى هذا أنا نقول فرح شراي جمال أحمد جمالي وإحنا لنا هاي قيبة كل صاحبي لا تلفزيون خارج الصومال اللي تذكر كذا ليش شيء نكسب حرني منو